gudoomiyaha xarunta daryeelka caafimaad ee Soomaalida Mareykanka Cabdicasiis Muuse Maaxiye iyo xubno dhaqaatiir ah oo hogaaminaya ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. Imaanshaha dhaqaatiirtani ayaa qayb ka ah sida ay u gurman lahaayeen dadka dhibaataysan ee Soomaaliyeed iyo sidii ay loo dabooli lahaa qayb ka mid ah baahida caafimaad ee haysata qoysaska Soomaaliyeed ee badankood kuwa soo barakacay ee haatan ku sugan magaalada Muqdisho. Gudigani ayaa horudhac u ah kaalmooyin ay soo ururiyeen jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada kala duwan ee dalka Mareykanka kuwaas oo isugu jira raashin iyo dawo. Sidoo kale dhaqaatiirtani ayaa waxay tagi doonaan isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir iyo isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Soo dhaweynta dhaqaatiirtani ayaa waxaa ka qayb qaatay ururka horumarinta haweenka Soomaaliyeed waxaana munaasabada soo dhaweynta ka hadashay Marwe Zahra oo ah la taliyaha xarunta horumarinta haweenka. waxaa farxad noo ah in Somecare oo socoto oo naga timiday USA soo halgamaya campaignkan ummadda Soomaaliyeed baahida u dhimanayso oo dawladda u dhimanayso inay ka qayb galaan. waxaa loo yiri ninkii madaxweynaha ka ahaa Somecare Maaxay Cabdicasiis Maaxay iyo Dr. Cabdullaahi iyo laba gabdhood oo neersin ah oo ayagana hadda shaqo noogu maqan. waxaan rabnaa in aan ku soo dhaweyno xamar and welcome. waxaa timideen dalkeeni waxaa u timideen dadkeeni waxa wax u qabanaysan waa dadkeeni haddee inta aad hor qabatayna waa la ogyahay oo maanta looguma sheekeynayo Maaxay iyo gruubkiisa. annagana waxaan ahayn dadka xamar Somecare u fadhiyey oo wax la qabanayo oo dadka uga dirayaan ahayn. marka maanta farxaday noo tahay waa bil Ramadaan. sidoo kale Dr. Cabdiraxmaan oo isna ka hadlay madasha ayaa ugu horeyn u mahadceliyay soo dhaweynta ay reer Muqdisho u sameeyeen gaar ahaan ururka horumarinta haweenka ee xaruntiisa tahay magaalada Muqdisho. inkastoo dhakhtarku wadan kasta oo uu joogo dhakhtarku ma laha qabiil ma laha siyaasadna kuma jiro. taasi waxa ku tilmaamaya shaarka cad ee uu sitaa waa tilmaan cad oo ah in uu ka midhan yahay inuu siyaasad ku jiro inuu qabiil wax ku eego inuu qofka diintiisa ku xiniyo in uu qofka uu kala sooco rag dumar waxyaalahaas oo dhan uu ka maran yahay taa macnaheedu waxa weeyaan xad ma laha meel alla meeshii dhibaato ka dhacdo haddii uu awood u yeesho oo nabadgelyadiisa iyo waxa ay suurtagal tahay wuu u gudbi karaa. ugu dambeyntii ayaa Cabdicasiis Muuse Maaxay oo ah madaxa hay'adda daryeelka caafimaad ee Soomaalida Mareykanka waxa uu ka warbixiyay ujeedka safarkooda ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho. waxaan ku casuunay mar container soo baxay halkan soo baxay ay ku jiraan cunooyinka nafaqada leh caanaha bariiska nafaqada leh ay soo aruurisay hay'adda Somecare iyo hay'adda Hopeful City in Minneapolis ku taal iyo dadweynaha ku dhaqan Minneapolis oo dhan ay soo aruuriyeen ayaan ugu talagalnay macnaha ay sheegay dadka dhibaataysan. kaas kaliya ma aha waxaan ugu talagalnay waxaa soo baxay Kansas ka soo baxay container kale waxaa ka soo baxay Las Vegas container kale Houston Texas waxaa ka soo baxay container kale. intaas waxaan noo dheer insha Allah tacaala hadda waxaan u nimaadnay inaan ogaano aan fiirino sheeg xaaladda dadka dhibaataysan ee halkan walaalaheen dhibaataysan. waxaan rabnaa inaan qayb qaadano sidii aan caawinayno isbitaalada ku dhisan ka jiro magaalada Muqdisho. ha u badnaato isbitaalka Banaadir inaan macnaha ii sheeg waxaan la qaban doono iyo Madiina isbitaalkaas si kastaba ha ahaatee imaanshaha dhaqaatiirtani ayaa waxay noqonaysaa mid ay ugu gurmanayaan walaalahooda Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan magaalada Muqdisho haba u badnaadeen kuwa barakacayaasha ah. Cabdinaasir Soomane, Universal TV, Muqdisho.